الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منا وإياكم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح. intaas kadib dhammaantiin inta daawanaysa fiidiyooga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. fiidiyoogan ma aanan soo gudbinin in aan ahay caalim ama cilmi aan leeyahay oo dadka dheerahay, maya, balse waxaan usoo gudbiya keliya mawaacido yar in aan idin soo xasuusiyo qof caalim ah oo cilmi yaqaana ee mudan maahi, laakiin kalimaad. sababtoo ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi: balliquu canii walow aaya. qayb xadiis ka mid ayay ahayd, iga gaarsiiya aayad ba allah ka yeelay. marka maanta waxaan qaadan doonaa hal xadiis oo warinayo cabdillaahi ibni cabaas. xadiiskan waxaan u arkay inuu yahay qayb ka mid ah xoojiyaha yaqiinta qofka mu'minka ah ee ilaahay subxaana wa tacaala rumeeyey. haddaba aan gudagalna xadiidkeena in sha allahu tacaala. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث كان ورنا صحابي جليل عبد الله بن عباس أصيبه تاغن nabiga calayhi salaatu wasalaam gadaashiisa ayaa nabiga u yeeray. markaasuu wuxuu yihi: waxaan ku barayaa kalimaad, erayo ayaan ku barayaa ilaahay xifdi uu ku xifdinayaa. ilaahay xifdi maxaa loola jeedaa? tajidhu tujaahak. ilaahi subxaana wa tacaala waajibaadkiisii, wixii faraa'idka oo ilaahay ku saaray inaad ilaalisid, oo ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhawaatid, oo maaragta kuwaas aa ilaalisid. ilaahay xifdintiisa waa ku meeshaas, ma ahan inaad wardiye kala naqatid oo ilaahay subxana wa tacaala nooc kale u ilaalinaysa, ma ahan, bal waxaa waay wixii ilaahay ku saaray ee waajibaad ah ee maaragta ilaahay kaaga digay, wuxuu kaa reebay iyo wuxuu ku faray, intaas inaad la imaatid oo waqtiyadoodii iyo sida loogu talagala u dhowrtid ayaa loola jeedaa. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. haddaad wax su-aalanaysid, wax weydiinaysid oo waxba baryaysid oo ka maarmin inaad wax barisid, alla bari. haddaad wax magan gelaysid, alla magan gel. maanta dadka bilcagsi ayay sameeyaan.
markay bini aadanka kusoo daalaan ayay alla u gudbaan ma aha noocaas. ilaahi subxana wa tacaala marka hore ayaa laga rabaa inaad baridid asiga weydiisatid wax alal waxa u baahan tahay, ama maarata magangeli doonaysid oo maarata ilaahay subxana wa tacaala magangalo dad kale ha magangelin si dadka badan ay dhahaan, oo maarata markii qofka dhibaato ku dhacdo ama wax maaratay la kulmo oo ha maarata degdeg ah dhacdo degdeg ah markii ku dhacdo inuu qofka carabkiisa wax kale ku dhacaan ayaa macquul ah, sida dad badan u badan yihiin. mar walba aan la xasuusnaa markii dhibaato kugu dhacdo ilaahay magangal oo maaragtay ilaahay subxana wa tacaala mar walba qalbigaaga ku weynaado soona xasuuso waqti walba oo dhibaato la kulantid. waclam ana alummata low ijtamacat calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka, garase oo ogow ummadoo dhan hadday isku tagto inay wax kuu taraan waxba kuu tari ma karaan ilaa wax ilaahay hore kuugu qadarayo kuu qora mooyaane, ilaa bishayin qad katabahu allahu lak. ayagoo dhan hadday isku tagaan ay dhahaan maanta bal waxaan tarna qofkaan dhiman raba ama qofkaan maarata miskiinka waxba ayagoo daalana iska tagayaan, wax ay ku qaban karaan ay kusoo kordhin karaan ma jirto. wain ijtamacuu calaa an yaduruuka bishayin lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu lak calayk, haddii isku tagaan ayagoo dhan haddana inay ku dhibaan ama dhibaato ku gaarsiin hadday iskugu tagaan, nabiga ilaahi wuxuu leeyahay waxba kuuma dhibi karaan ilaa wax hore aday ku qadar ilaahi subxana wa tacaala ma inay kugu dhacaan, wax ay ku tari karaan ma jirto, wax ay kaa dhibi karaanna ma jirto. ruficat alaqlaam, qalamadii waa la kor yeelay, wajafat isuxuf, warqadihii lagu qorana way aangageen oo way qalaleen. rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasanun saxiix, xadiiskana wuxuu maaratay wariyey raawigiis waxaa waye tirmidi, waana xadiis xasan saxiix ah, wuxuuna ku yeelay 2516 raqamka kitaabka sheekaas. marka xadiiskan riwaayad kale oo leeyahay wafii riwaayatin gayri tirmidi ixfad illaha tajidhu amaamak tacaraf ila allahi fi raqa yacrifuka fi shida waclam ana ma akhdaaka lam yakun liyusiibuk wma asaabaka lam yakun liyukhti'uk waclam ana alnasra maca alsabri wa ana alfaraja maca alkarba wa ana maca alcusri yusra. xadiiskaas ayaa isagan riwaayad kale oo gayri tirmidi ah ayaa jirto oo ilaahay subxana wa tacala xadiiska macnihi hadda oo kale ka hadlayo, oo waxaa ku jirto keliya waxyaaba dheeraad ah oo sida ilaahay subxana wa tacaala waqtiga aa barwaaqaysan tahay ilaahay subxana wa taala xasuusnaa waa hilmaamin, waqtiga shidada iyo dhibaatada jirto ayuu asigana ku xasuusanayo. macnaha dadka badanaa markii adduunyada la joogo waa aragtaa waqtiga roobaadka waqtiga maaragtay ganacsiga jiro ilahi subxana wataala dhamaan waa la hilmaamaa, ilahi subxana wataala war lagama hayo, waa maaragtay iska adduunyada la iska galaa, waa dadka maaragtay noocyadooda kala duwanba qof ilahi xasuusta waa yartaa, laakiin waqtiga roob la-aanta abaarta dhibaatada jirto qofba markaas ay xeelaha ilaahay ayaa jooga, ilaahi subxana watacaala ayaa markaas xasuustaa. sidaas ma ahan waqtiga barwaaqaysan tahay alla garo, waqtiga dhibaatada jirtana asiga ayaa ku garanayo oo ku caawin doono ilaahi subxana wa tacaala. garase wixii ku gafa ma ahan kuwa kugu dhici rabay, wixii kugu dhacana ma ahan kuwa ku gafi rabay. Soomaali waxay dhahdaa qadarta 1000 sanay kaa weynti, qadarta 1000 sanay kaa weyn tahay. qadarta wixii kugu dhici rabay horta waa lagu qoray saas ay tahay, laakiin waxyaaba ka hortaga ayaa jira sida ducada oo kale, inaad ilaahay baridid oo maarata ilaahay subxana wa tacaala mar walba ducada ku celcelisid, waxay kamid tahay waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala qadartii oo hore u qadaray ka hortaga ayay kamid. macnaha ilaahay subxana wa taala hore kugu qadar wax inay kugu dhacaan, balse ducadaadii badneed aad duceysan jirtay adiga ilahay subxana wa taala barin jirtay waxay kamid tahay waxyaabaha maaratay reeba qadartaas inay kugu dhacdo, waayo qadarta ilahi subxana wa tacaala waxaa ka weyn baryadiis. ilahi subxana wa tacaala wuxuu yiri quraanka ku yiri yamxu allahu maa yashaau wayuthbitu cindahu umu lkitaab, ilahi subxana wa taala kitaabkaas agtiisa yaal wuxuu doono ka tiraa, wuxuu doonana wuu ku sugaa oo maaragtay wuu kusii hayaa. marka wixii ku dhacaa dhihin waxay igu dhaceen sababtoo ay ku dhici rabeen mana ku gafi rabeenba, wixii ku gafana maba kugu dhici rabeen. marka ogow waclam ana alnasra maca asabri, sidana hiilada iyo gargaarka alle sabarka ayay macigeed tahay. wa ana alfaraja maca alkarbi, faraj inaa heshidne waa inaad kurba martaa, kurbada ayaa ka horeys, markaa kurba martaa ayaa farajka ilahi subxana wa tacaala hiyeysaa oo kurbada ayuu macigeed yahay. wa ana maca alcusri yusran, culays walbana micigiisu waxaa fudeed,
waqti walba culays iyo dhibaato iyo cariiri dareentid waxaa ka dambeeyo fudeed insha allahu tacaala xadiidkan ayaan kusoo koobeynaa waan wadi doonaa insha allahu tacaala xadiidtan iyo weliba insha allahu tacaala aayaad qur-aan ah iyo weliba wixii mawaacid ah oo wanaagsan ayaan wadi doonaa insha allahu tacaala saan soo gudbinaynaa walalaha muslimiinta ay iga codsaday iyo kuwa aan iga codsanin oo hadda gaari doonaba insha allahu tacaala kulli waxaan leeyahay daawasho wanaagsan hala sii fiidiyooga maaragtay kuwa kaloo badan insha allahu tacaala waa soo wadaa aniga caalimihii hore idinkugu sheegay markale idinkugu celinayaa balse waxaa waaye mawaacida iyo in aan dadka xasuusiyo maaragtay wax ay yaqaanaan inaan xasuusiyo wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin ayuu alla leeyahay subxaanahu watacaala waanadu waxay anficaysaa kuwa mu'miniinta ah marka insha allahu tacaala wixii aan halayra alla ayay ka ahaatay wixii aan qaldanay shaytaan iyo nafteeda ayay ka ahaatay fiidiyooga sii faafiya maaragtay hana lagu camal falay axaadiistaasi ilaahi subxaana watacaala nabigiisa ka sugnaatay ha la qaato ha lagu dhaqmo insha allahu tacaala alla naga dhigo kuwa ku camal fala ay ku dhaqma kuwa maqla ee inta wanaagsanna ka qaata insha allahu tacaala walaalaha mu'miniinta ah intaas ayaan kusoo koobaya xadiiskaasi insha allahu tacaala maalin kale iyo xadiid kale insha allahu tacaala waan soo wadaa waana keenina insha allahu tacaala kanne allah naga yeelo kuwa ku camal fala kuna dhaqmo insha allahu tacaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.